injineer Faysal Cali Waraabi gudoomiyaha xisbiga cadaalad iyo daryeelka Ucid ahna musharaxa jagada madaxweyne ee xisbigaasi ayaa maanta munaasabad si heersar ah loo soo agaasimay kaga qayb galay walka cusub ee hotel rays ee magaalada Boorama munaasabadan oo ahayd tumaalimihii u dambeeyay laga dareemayay abaabulkeega gudaha magaalada Boorama ayaa waxa ku biiray xisbigani Ucid afar xaafadood oo ka tirsan magaalada Boorama iyo waliba laba urur dhalinyaro ah munaasabadani ayaa ahayd iyadu mid gilgishay hoolkii ay ka socotay taas oo wajiga Faysal Cali Waraabana laga dheehanayay farxad aad u sareysa hadalla kooban oo goobtaasi laga soo jeediyay ayaa ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay maamulka degmada iyo ka gobolka ee xisbiga Ucid iyo waliba xogayaha xiriirka labada gobol ee Awdal iyo Salal iyaguna hadalka waxay iska daba qaatay xubno ka tirsan dhalinyaradii iyo mas'uuliyiintii ku biirayay xisbiga cadaalad iyo daryeelka Ucid iyaguna dhankooga waxa halkaasi ka hadlay xubno ka tirsan xogayaasha heer qaran ee xisbigani Ucid gabagabadii injineer Faysal Cali Waraabi oo goobtaasi ka hadlay ayaa si maqam sare ah u soo dhaweeyay xaafadaha iyo dhalinyaradani ku biiray maanta xisbigani Ucid iyo degmooyinkan u soo جامع حسين جامع دودة Somali Cable TV hotel rays ee magaalada Boorama